السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سومالي وين وادي السلام ميل والبوات شوكتان وعبد محمود قلع يا برنامجكي إذن كإيمان شري معهد كنبضة يا بالشدة ولا ليال مانتو حربائنا كفا اللوضو فيديو وإيسو ديري قف كمدا دادكا channel كان دعوضة ونالا سعودة فيديو قاسنا وحاوي رنتي وح عرقاقح له anshaxumo leh loona baahan yahay dadka Soomaaliyeed in lagu baraarujiyo la tuso aynu ka digtoonaano oo waxyaabaha caynkaas oo kala markaynu aragno aynu runtii diidno bal marka hore fiidiyowga daawada waxaan idinka codsanaynaa inaad channelka taageertaan oo like iyo subscription ku samaysaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin waa kan fiidiyow عيد كستو مسلنا وعشوينكي فرحدي عيار عدنو هاي وعيدي عيد عيدا عشيري دارس وندبا عيد العافية عيد مبارك عيد ونكسن كل عيدا sidaad aragtaan nin ayaa wiil saaray geed ka soo laalaadiyay geed sidii xoolo la qalayo oo kale oo shaarkiisii midida halkaa ka gelinaya sidii uu shafka ka dooxayo oo kale ama maaragtay uu haraga ka bixinayo oo kale arrintaas runtii waa arrin argagaxa waana arrin dhaqan xumo ah waxaana laga yaabaa qaar badan oo idin ka mid ah inaad ama ku qoslaysaan ama caruurtiina aad la daawanaysaan oo tusaysaan laakiin arrintu saa uma fududa waxa inoo horseedi karto iyo waxa ay keeni kartaa runtii waa wax aynu ka shalaayeen haddayna wax ka qaban waxyaabahaas iyo waxyaabaha la midka ah marka koowaad horta internetka waxyaabo badan oo khariban bay dadku soo geliyaan laakiin waxyaabaha khariban badana waa qarsoon yihiin dad baa soo geliya filimada xunxun dad baa soo geliya kooxo isku xiran oo midabta koor iyo magaciisi ka shaqaynaya dad baa soo geliya kooxo ma garanaysaa dagaalo iyo ma garanaysaa maandooriye iyo balaayo iyo waxyaaba caynkaas ka shaqaynaya waxyaabahaas waxaa la yidhaahdaa dark internet waa qarsoon yihiin dad baa ku xiran oo ma garanaysaa iyagu markaa waxeeya oo ku xiran haddii dadweynaha loo soo bandhigo waa la qaylinayaa dadka waxaa laga yaabaa in sharciga maaragtay la horgeeyo in meesha laga xiro in wax badan baa dhici kara waxaa jira marka laba qaybood oo kale oo iyana internetka ku shaqaleen markaynu iska dhaafno ganacsiga iyo waxbarashada iyo waxyaabaha markaynu iska dhaafno qaybi waxa weeye qayb isku dayda inay bulshada si ma garanaysaa cilmiyana ama waxtara ugu faa'iideyso sida macadka yagaan halka nabadda iyo bulshada oo kale waxaan isku daynaa inaanu dadka Soomaaliyeed wax anfacaya keeno waxyaabaha xunna uga digno wax waxtara inaanu ka hadalno dad caynkaasaa jira waxaa jira dad kale oo wax maaweeliya laakiin maaweelidoodu waa mid hufan waxna ka qoslinaysa laga yaabo qofku inuu wax ka korsado wuxuun macnaa leh laakiin ma aha fawaaxish iyo kharibnaan iyo magaciisi ma aha dad kaloo waxaa jira iyaguna karti ay leeyihiin oo farsamo dadka u soo bandhiga dad baa laga yaabaa inay tusaan sida dambiiraha loo tolo sida dharka loo tolo sida ma garanaysaa dahabka loo sameeyo sida ma garanaysaa waxyaabo kaloo wax loo sawiro oo sawirada loo sameeyo dad caynkaasina waa jira laakiin waxyaabaha aan macnaha ku fadhiyin oo kharibnaanta ah dadku waa diidaan dadka sameeyaana ulama bareeri karaan haddii ay soo bandhigaanna waa lagu khasbaa ka saara meesha laakiin inaga dadkeena runtii waxaad moodaa wax walba inaynu ogolaanay waxaana isweydiiyaa maxaa damiirkii iyo dadnimadii inaga qaday yani qofka Soomaaliyeed inuu wax diido oo yiraahdo war waxaas ma habboona mana rabo maxay tahay marka arrimaha markaynu usii daynay xariga usii daynay internetka iyo TikTok-ga waxaa dhacay runtii waxyaabo aad ka yaabaysid wiilka hadda wuxuu ninka ku samaynayaa waxa weeye
يعني wax كان novelty ama wax ma garanaysa aan horey loo arago kale oo aad view ku heshay laakiin wax hal abuur maaha taasi hal abuur maaha taasi waa kharibnaan waa dembi waa qof bini aadan oo aad u gaftay oo sharaftiisi meel uga dhacday oo xayawaanka aad la meel dhigtay taasi ma aha wax aad ku mudanaysid hal abuurnimo iyo inaad wax cusub keentay ma aha waxaa kaloo jiro aynu u adeegsanayo aan ka yaabay ay iyo qabyaalad dumarka Soomaaliyeed waxaa arkaysaa iscaayay iyagoo xijaaban oo magaciisu aad leedahay war waa dad alla ka cabsiyo diin leh ayay haddana waxay ka hadlayaan galmo iyo taa waxaasa lagu sameeyaa iyo kan iyo nayaa bahalkaaga iyo kan iyo waxana anigu halkan afkayga soo marin karin laakiin argagaxaysid waxyaabo wax ka sheegaya bulshadeena runtii dadkeenu say yihiin qaar baana dadka u soo bandhiga waxyaabahaas oo kale oo halka inta fariista halka ka soo daayo okay fiirsada ma aha inay xumaantooda ka hadlayaan anaga waxyaabo xun hadaan soo qaadno digniin baan ka bixinaa war waxaanu ma inagu habboon yihiin diida weeye waxaanu leenahay laakiin ma aha inaanu ka raalinahay oo dad badan ku soo jiido caynka ma aha waa dulinimo taasi waa dabiir xumo waa dadnimo xumo marka waxyaabaha caynkaasi meelo fog bay geynayaan hadda shalayto waxaan arkayay run iyo been waxay tahay ma aqaane gabar cod laga soo duubay oo dad faafinayo leh waxay joogtaa laas caanood oo gabadheedii oo 12 jira ayaa albaabka hortiisa laga qafaashay bay leedahay marka waxay leedahay dadaan TikTok isku caay jiray oo caynkaas ayaa ii hanjabay oo yiri waad arki doontaa waxa caruurtaada ku dhaco iyaga gabadheedii qafaashay markaynu ogolaano waxyaabaha xunxun waxyaabo caynkaas oo kala ayaa ka dhalan kara marka waa inaynu diidno dadka Soomaaliyeed marka horeba ka hortagaan waa inay ka hortagaan oo qofka caynka marka waxyaabaha idin soo saaro aydan u socobtumin ee adiidaan wariya meesha ka bixi tirahdaan oo dadku wada diidaan oo aydan like u saarin oo aad yani anshaxumo ku tilmaantaan oo xataa kambaniga aad u report garaysaan oo tirahdaan waxa halka qofkaas uu soo galiyay wax habboon weey wax argagaxle weey wax la fiirsan kara ma qof isagoo mid ku waxaynayo ayuu soo galiyay وين سدا uga hadashaan sidaas ay bini'aadanku wada sameeyaan wixii aanay diidan yihiin oo dhan waa ka soo horjeestaan oo ama dhaqankooda ama bulshadooda ama waxay aaminsan yihiin ama sharafta guud oo bini'aadanka aan ku habboonayn waa laga soo horjeestaa haddii lala dhuumanayo uu kooxo yar u xiran yahay oo halka intaad adigu maaragtay isdiiwaan geliso aad gelayso taas ciduna shaqo kuma leh laakiin markay wixii wax banaanka soo baxo public yihiin dadku ma ogola لكن إننا دتكنو وين أصعبتمينا ومركا تلاوة لو دريا مركا دم وحوالي نجارينا واللي وحو أكبر نجارينا أنا وحن قبا وحيابها إن لقاها الله وضدك الديدان واللي بهدي الدولة الشراء وضنكي وإن كمبنياش مركا ورب وحيابها كدجان كمبنياش ما قرنا السائن إن إسكارسين تلنا وحن قبا ضدك وحنو كلا السمينية إني بكحران تلفون كيري هذان haddaad waxyaabaha caynkaas oo bulshada khatarta ku ah aad samaysaan waa idin ka xirayna waxaan la rabaa in sharci laga sameeyo anshax xumada waxyaabaha ku saabsan dawladuhu waa in sharci ka sameeyo ama dawladda dhexe ha noqoto Soomaaliya ama kuwa gobolada ha noqdeen waajib baa ka saaran inay dadka fayoobidooda ilaaliyaan iyo caruurta iyo magarasa dhalinyarada oo wax macno leh oo loo horseedo aan loo horseedin kharibnaan iyo balaayo aan loo horseedin inaan loo horseedin way waa rajaynaya dadka Soomaaliyeed inaad waxyaabahan ku baraarugtaan adigu daawada haddaad daawatay maxay kula tahay ma la yaabtay waxaan runtii ma fiirsan lahayd haddii lagu soo bandhigo caruurtaada ma la fiirsan lahayd ma ka falcelin lahayd oo haddaad aragto xataa ma dhihi lahayd war waxaan meesha ka saaran ama waxaan ma habboona waa cabdi maxamuud qalac iyo barnaamijkii idinka imaan jiray machadka nabadda iyo bulshada sidaa iyo nabadgelyo walaalayaal